بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ددوينها الرجي بوتي ميل كستو جوكتان با واندين سلاميا. ما انت وحان سيجارة يسكو دول تاقي دونا وحيابا آنان لغا هذا لكن سي جوكتا الله هذا الهيو وحيابا انكر لو قادين لكن هوس لغا هذا لايان اسدول تاقينا وقبيالة دا iyo kala qaadqaadka iyo qurunka iyo qushashka waad ogtihiin Ismaaciil Cumar Geelle waxaan isku hayni waa siyaasad weeyaan hirdankayagu shakhsina maaha qabyaaladna maaha laakiin waa fikir siyaasadeed waxaan isku hayni waxaan rabnaa inuu isbedelo ka suura gala dalkeena laakiin dad ayaa u haysta qolo iyo qabyaalad dad ayaa u haysta in la weerarayo qabiil waxay soo weeraray isoo galay fartaygu soo fiiqay runtii waxyaabo ceebana ka dhawaajiyay ninka agdhow Ismaaciil Cumar Geelle oo waliba isagu adeer u yahay oo mamaasan bahfur laba ayaa isoo weeraray hay soo weeraree cidda uu weerarayo ma uu yaqaanaa waa maya ninkaas magaciisa waxa la yiraahdaa Alexis Mohamed baa la yiraahdaa waa nin mamaasana oo bahfur laba oo Ismaaciil Cumar la shaqeeya xafiiska madaxtooyada halkan marka ugu horeysa waxaan ka cadeynayaa halgankeyga siyaasadeed iyo hirdankan Ismaaciil Cumar Geelle aan ishayno inuu haba yaraatee qabyaalad uu ku salaysnayn ninkaas waxyaabaha uu ka dhawaajiyay waxaa ka mid ah arrimo ku salaysan qabyaaladda isagoo isxijisiinaya Ismaaciil Cumar Geelle waan ogahay inuu isagu yahay nin mamaasana oo bahfur laba waan ogahay Ismaaciil Cumar Geelle inuu yahay nin mamaasana oo bahfur laba laakiin doqonnimadiisa iyo garaadkiisu halka uu dhigay waxa ay noqotay inuu yiraahdo wadanka waan ka xigaa Ismaaciil Cumarna waan ka xigaa halkan waxaan ka cadeynayaa isagana uu sheegaya inta sida uu fikiraysana uu sheegaya in haba yaraatee uu Ismaaciil Cumar Geelle uuna iga xigin dalkana inuu iga xigin ayaan halkan ku cadeynayaa waxaan isagana u sheegayaa oo kale yahay si kalaad malaha wax u fahantay orodo Ismaaciil Cumar Geelle kulan la qaado la sheekayso waxaad ka tiraahdaa Cabdiraxmaan Teix maxaad isku tihiin ka dhe isaga wax walba ku macnaynaya kow laba waxa kale oo halkan ka cadeynaynaa fikirkeyga siyaasadeed iyo waxyaabaha aan aaminsanahay inayna ahayn qabyaalad iyo qurun iyo qushash oo waa nuucaayo meedhan waxa ku shaqaysanaya ku hawlgalaya ka shaqaynaya habeen iyo dharaar in dadka dalka uu u kala qaadqaado qolo iyo qabyaalad iyo qurun waxaan halkan ka cadeynaynaa inuu mamaasanku dadkayaga yahay waxaan halkan ka cadeynaynaa inay bahfur laba dadkayaga ay tahay dadka halkani degan dalkani degan waa dad mida weeyaan cidba ma kala qaadqaadi karto cidba iskuma diri karto cidba ma kala fogeyn karto baruur ya qurmisabay Soomaalidu ku mahmaahda hadii aad ina Maxamedow aad isku dayaysid inaad baruuryaha qurminaysa aad noqotid qurmin maysid baan ku leenahay gaar ahaan waxaan ku tilmaamaynaa in qurunka iyo qabyaaladda iyo qushashka iyo kala qaadqaadka aad wadid dalkani waa dal weeyaan ummadanina waa mid weeyaan waxa la isku hayina waa siyaasad weeyaan haddii adigu shalay mabda'aagii aad bedeshay ood hunguri ka raacday haddii aad mabda'aagii bedeshay ood sulaadi ka raacday haddii aad mabda'aagii aad bedeshay oo waxaad cunto aad ka raacday annaku alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahayna waan aaminsanahay naftayadana waan aaminsanahay waxa aan qabanaynana waan aaminsanahay waxaan ku macnaynaynaa
inaan siyaasad isku hayna baan kuu macnaynaynaa waxaan kuu macnaynaynaa inaan aragti isku hayna baan kuu macnaynaynaa waxaan kuu macnaynaynaa inaan mabda isku hayna baan kuu macnaynaynaa laakiin waa nuucaaga oo kale qushaashka oo kale weeyaan waxa qabyaaladda iyo kala fogaynta iyo dadka kala diraya weeyaan dalkani haddii 40 sannadood aad isleedahay waan maamulaynay annakaa maamulaynay waxaan kuu sheegaynaa in dalkani uu yahay jamhuuriyad baan kuu sheegaynaa inuu cid kastiba ay ku nooshaan kuu sheegaynaa in xaq loo wada leeyahay baan kuu sheegaynaa waxaan ku soo gabagabaynayaa mamaasanka aan cambaaraynin mamaasanka aan ceebaynin imisaan ognahay oo gaajoonaysa imisaan ognahay oo ka soo horjeeda imisaan ognahay oo dalka ka qaxday waxaan ku soo gabagabaynayaa jamhuuriyadda Djibouti ha noolaato shacabka reer Djiboutina ha noolaadaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh